Assalaamu calaykum. DB Cooper afduubkii ugu yaabka badnaa adduunyada. DB Cooper waa shaqsigii fuliyay afduubkii ay ku tilmaameen FBI-du inuu yahay mid ka mid afduubyada ugu yaabka badan adduunka ee aan ilaa maanta la fahmin sida uu dhacay. Daawade muuqaalkan sida aad u jeeda waa uu ka dheer yahay muuqaaladii aan kusoo gudbin jirnay kanaalkeena. Wuxuu xambaarsan yahay xog diyaarinteeda lagu bixiyay waqti iyo dadaal badan. Fadlan subscribe saar kanaalka, gambaleelkana furo si aad u hesho xogta aan halkan soo gelino. Muuqaalkana sidoo kale like saar haddii aad ka hesheen la wadaag asxaabtaada. Sheekadani waxay bilaabmatay maalinimo Arbaca waa 24 November 1971. waa hal maalin ka hor 25 November oo ah maalin ay Kiristaanku u dabaaldegaan dhalashada Nabi Ciise. maalintaas madaarka waxaa soo galay in lagu magacaabo Dan Cooper oo goostay tikid ka mid ah diyaaradaha shirkadda Northwest Airlines. tikidkan oo qiimihiisu ahaa $20 ayuu diyaaradda kaga raacay magaalada Portland ee stateka Oregon isaga oo ku wajahan magaalada Seattle ee dhacday stateka Washington. xisaabta ku darso 1971 iyo waqtiyadii ka horeeyay qofku waxa uu goosan karay tikidka diyaaradaha ee localka ah macnaha wadanka gudihiisa isagoo aan la weydiin passport ama national ID ama nooc doona ha ahaadee waxa uu dukumeenti cadaynaya qofka aad tahay. intaas waxa dheer baaritaanadu ma adkayn umana hormarsanayn sida maanta. waxa fududay in hub lala galo diyaaradaha. waqtigaas waxa lagu xasuustaa afduubyadii istaba joogga ahaa ee ay Falastiiniyiintu ku qafaalan jireen diyaaradaha ay saaran yihiin rakaabka Yuhuuddu. Muqdisho, Kampala, Berlin, Tokyo iyo meelo badan oo kale ayay ka dejiyeen diyaarado ay soo afduubteen xilligaas. waxaynu ka hadlaynaa waa duulimaadyada localka ee aan dhaafsanayn gudaha dalka. sida aynu soo sheegnay diyaaradani waxay u kala gooshaysay labada ee Oregon iyo Washington. sida caadiga ah safarkeedu waxa uu qaataa 30 daqiiqo oo kaliya. ninka aynu ka hadlayno magaciisu waa Dan Cooper. sida lagu qoray tikidka uu goostay waa magac u muuqda inuu yahay been abuur marka la eego faldambiyeedka uu qorsheynayay iyo in aan la weydiin wax aqoonsi ah. 40 jir ay da'diisa ku qiyaaseen dadkii arkayay wuxuuna xidhnaa shaati cad, surwaal madow iyo tay madow. waxa uga sareeyay koodheer oo nooca lugaha gaadha. si gaar ah u xasuusnaa tayga madow oo uu xidhnaa. cabaar kadib ayaynu marka laga yimaado dharka uu xidhnaa wuxuu watay boorso madow iyo baag. wuxuu la fuulay diyaaradda oo nooceedu ahaa Boeing 727 wuxuuna fadhiistay qaybta dambe ee diyaaradda. kursiga nambarkiisu yahay 18A. gabadh ka tirsan shaqaalaha diyaaradda ayuu ka dalbaday inuu keento sharaab lagu magacaabo bourbon oo ah mid ka mid ah noocyada khamriga. sida nin aan walwal adduunyo iyo dhib qabin ayuu u fadhiyay. kabtankii diyaaradda ayaa rakaabka u sheegay inay suumanka xidhaan maadaama ay diyaaraddu kacayso. waa 3 galabnimo. wax walba waxay u socdaan sidii loogu talagalay. Cooper hareeraha ayuu iska eegay rakaabka ayuuna isha mariyay. ma badna tiradoodu waa 36 qof oo kaliya. waxa dheer shaqaalaha diyaaradda. kadib markii uu qiimeeyay xaaladda wuxuu u yeeray gabadhii ugu dhaweyd shaqaalaha diyaaradda wuxuuna u dhibay warqad ay ku qoran tahay fariin muhiim ah. waxay u fahantay inuu taleefankiisa u reebay. jeebka ayay ku ridatay. shaqadeeda ayayna sii wadatay. wuu u yeedhay wuxuuna si hoose ugu sheegay inay aqrido warqadda. waxaana ku qoran marwa waxaan wataa bombo. soo fadhiiso dhinacayga si aan kuu tuso. diyaaraddu way afduuban tahay. waxaan wataa shuruud aan rabo in lay fuliyo. iyadoo argagaxsan ayay dhinaciisa fadhiisatay. boorsadiisa ayuu soo qaaday. inta uu dhabta saartay ayuu furay. wuxuuna tusay diyaarsan oo boorsadiisa ugu jirta. baqdin badan ayaa wajigeeda ka muuqday. wuxuu u sheegay inay istajiso ayna qorto shuruudda uu yeedhin doono. shuruuddiisu waxay ahayd in loo keeno $200,000 laguna soo rido boorso nooca dhabarka ah. in diyaaradda looga shidaaliyo madaarka ugu dhow iyadoo aan la furin albaabada rakaabka iyo in loo keeno 4 baarashuud. qorshaha Cooper waxa laga fahmi karaa shuruudaha uu qortay marka la eego lacagta uu dalbaday oo ahayd $200,000. wax yar hamoodin waxay maanta u dhigantaa wax ka badan $1 milyan. lacagtaas waa ta uu diyaaradda darteed u afduubtay. shidaalka waxa isna laga fahmi karaa inuu doonayo inuu diyaaradda ku baxsado. baarashuudka isna wuxuu ugu talagalay inuu diyaaradda kaga boodo. waxa isweydiin keentay sababta uu dalbaday 4 baarashuud maadaama hal xabo ay ku filan tahay. waxa loo fahmay qorshahan inuu doonayo qaar ka mid ah rakaabka ama shaqaalaha diyaaradda inuu ku qasbo inay la degaan. Cooper inna kuma qasbin inay diyaaradda ka degto. kanina wuxuu ahaa qorshe ugu talagalay inaan loo soo dhiibin baarashuud ciladaysan oo aan shaqaynayn. wuxuu gabadha faray inay warqadda gaadhsiiso duuliyaha. way gaadhsiisay. isna wuxuu fariinta u sii gudbiyay madaxa shirkadda iyo laamaha dowladda ee ku shaqada leh. in yar kadib ayay u soo noqotay Cooper oo kursigiisa ku fadhiya. sharaabka ay u keentayna cabaya. wuxuu xidhan yahay muraayada uusan markii hore wadan. laga yaabaa inuu ugu talagalay inuu kaga yaabsado oo tuug weyn isaga dhigo.
waxay u sheegtay in fariintiisii loo gudbiyey shirkadda iyo dowladda labadaba. wuxuu u sheegay gabadha in aysan diyaaraddu degi karin ilaa inta loo dhammaystirayo dalabkiisa. daawade, arrinta la yaab kale ayaa ah tilmaamtii laga bixiyey Cooper oo ahayd inuu ahaa nin aad u degan oo jawiga iyo xaaladda taagan aysan welwel iyo walaac ku hayn. si degan ayuu u fadhiyey, kursigiisa ayuu amarada ka bixinayaa, jawaabahana ku sugayaa. aad ayay u adag tahay dembiiluhu si walba ula qabsado dembiyada dhaca, boobka iyo afduubka iyo xataa dilka inuu ku sugnaado xaaladan degan. way caddahay in Cooper uu ahaa qof qalbi adag. markii ay soo gaareen magaalada Seattle oo ah meeshii rakaabku u socday, ma aysan degin diyaaraddu. taa beddelkeeda waxay ku wareegisay madaarka. waxaa la diyaarinayay waxyaabihii uu dalbaday Cooper. rakaabku wax war ah kama aysan hayn mushkiladda taagan. waraaqo iyo fariimo ayaa la isweydaarsanayaa. diyaaradda dusheeda waxaa ka socda afduub qabow oo aan buuq lahayn si aysan dhibaato iyo buuq u dhicin. duuliyuhu wuxuu u sheegay rakaabka in madaarka ay mushkilad yari ka jirto oo ay degi doonaan cabaar kadib. in ka badan 3 saac ayay diyaaraddu hawada ku jirtay ilaa markii dambe loo sheegay in dalabkii loo diyaariyey. Cooper wuxuu amray in diyaaradda lagu dejiyo meel gees ah, lana damiyo laambadaha gudaha, daaqadaha dhammaan loo rogo daaha. wuxuu ka taxadarayaa in sniper loogu diyaariyo madaarka oo halkaas lagu toogto. wuxuu ahaa nin feejigan oo si weyn isu ilaalinaya. kadib markii diyaaradda loo shidaaliyey lana siiyey lacagtii iyo baarashuudadii 4 ahaa, wuxuu fasaxay rakaabkii oo tiradoodu ahayd 36 qof. wuxuuse weli haystaa oo la soo hadhay shaqaalihii diyaaradda. duuliyaha ayuu amray inuu diyaaradda kiciyo una dhaqaajiyo dhinaca Mexico. sidoo kale wuxuu ka dalbaday in joogga uu ku duulinayaa uusan ka badan 10,000 oo feet, uuna ku socdo xawaare ama isbiid aad u yar. runtii lagama hadhin oo waxaa la daba dhigay 2 diyaaradood oo noocoodu yahay F-16. masaafo xooga ah ayay u jiraan. waxay ku talagaleen inuusan dareemin. habeenkii laftirkiisu wuu caawinayaa, laakiin Cooper mar walba waxa uu ku talagalay in la dabageli doono si loo soo qabto. haddaba saacaddu markay ahayd 8 fiidnimo ayuu ka dalbaday shaqaalihii diyaaradda inay kabiinada isugu tagaan oo ay keligii uga tagaan qaybta rakaabka. cabaar kadib duuliyihii wuxuu arkay digniin tilmaamaysa in albaabka diyaaradda la furay. nooca diyaaraddu waa Boeing 727 oo albaabkeeda dambe waxa uu ahaa jaranjaro uu furi karo qof walba oo ku jira gudaha diyaaradda. hadda ammaanku intaasuu ka adag yahay. albaabka diyaaradda kaliya waxaa furi kara kabtanka ama duuliyaha. digniinta ay heleen kadib waxay fahmeen in Cooper diyaaradda ka booday. qaybtii rakaabka ayay soo galeen. sidii ay filayeen Cooper ma joogo. wuxuu hore u qaatay qarixii uu watay iyo lacagtii iyo 2 ka mid a dalladihii duulimaadka. meesha uu ku degay waa kayn u dhaxaysa Seattle iyo magaalada Reno ee state-ka Nevada. halkee ayuu ku dambeeyey Cooper? waa su'aal ay da'deedu 50 sano jirsatay. ma jirto cid jawaabteeda garanaysa ilaa maanta, sababtoo ah lama soo qaban. cidna ma garanayso meel uu jaan iyo cirib dhigay markii uu diyaaradda ka degay. ma jirin cid arkaysay. xataa diyaaradihii dabagalka ku hayay ma aysan dareemin in aan la helin. waxaa ka caawiyey waqtiga oo habeen ahaa iyo cimilada oo xumayd, sababtoo ah waxaa jiray daruuro badan oo roob iyo dabaylo watay. markii ay diyaaraddu soo caga dhigatay, howlwadeennadii FBI-du waxa ay bilaabeen baaritaan qoto dheer ayaga oo raadinaya Cooper ama wuxuun raad iyo calaamada uu kaga tegay diyaaradda. baaritaanku wuxuu meel dheer ku tuuray in qof inaga mida uu isweydiiyo Cooper armuu diyaaradda meel kaga dhuntay. raadka kaliya ee laga helay Cooper waa taygii madoowa ee aan soo sheegnay inuu watay. muxuu uga tegay? ma jirto cid garanaysa jawaabta su'aashan. waxaa loo malaynayaa inay caqabad ku noqotay markii uu xidhanayay baarashuudka iyo boorsadii lacagta. intaas kadib waxaa bilowday howlgal ballaadhan oo lagu baadigoobayay afduubihii fakaday. ugu horrayn waxaa laga bilaabay kayntii uu ku degay. waxay filayeen in Cooper uu dhintay ama meydkiisa la heli doono, sababtoo ah wuxuu booday xilli habeen ah, cimiladuna ay xun tahay. meesha uu ku degayna waa kayn aysan suurtagal ahayn inuu ka badbaado dhirteeda dhaadheer. maalmo baadhitaan ah kadib ma aysan helin raqdiisii oo meyd ah ama ruuxdiisii oo nool. xataa alaabtii uu watay meel uun kaga dhaca lama arag. kadib markii lagu guuldaraystay baaritaankiisii waxaa la qaybiyey sawir gacmeedka Cooper oo laga dheegtay tilmaamtii ay bixiyeen shaqaalaha diyaaradda, gaar ahaan Floronis iyo Tina. waxa ay sheegeen in dhererkiisu qiyaastii ahaa 1.80 sentimitir, miisaankiisuna 80 kilogaram. sida ka muuqata wejigiisa wuxuu ahaa 40 jir. midabka indhihiisu waxay ahaayeen bunni, inkasta oo aan la sixi karin lahjadiisa. haddana waxa uu lahaa cod weyn oo qallafsan. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso, ma laga yaabaa Cooper inuu lahaa saaxiib shaqada la fududeeyey kaas oo ka caawiyey u diyaargarowga afduubka ama ka baxsashada ciidamada Maraykanka? arrintaas waxaa meesha ka saaray shaqaalaha FBI-da,
kadib markii ay wareysteen duuliyihii oo sheegay inuu isagu doortay wadada diyaaradda markii ay ka soo kacayeen garoonka Seattle ay u socdeen dhinaca Mexico. Cooper ma faragashan jidka duulimaadka mana soo gudbin wax codsi ah oo dariiqa duulimaadka ku saabsan. Arrintaasi waxay caddayn u tahay in aysan jirin cid meel ku sugaysa si ay uga caawiso baxsashada. warkiisu waxa uu ka dhignaa mahmaada Soomaaliyeed ee tiraahda waraaba meeshii loo eriyay waa u bannaan. Shaqaalaha FBI-du waxa kale oo ay sameeyeen arrin ka caawin karta in Cooper la soo qabto xataa haddii uu baxsado. arrintan ayaa ahayd in lacagta loo dhiibay nooceeda laga wada dhigo $20 si qaadideedu ay culays u noqoto. qodobka labaad ee ay sameeyeen ayaa ahaa inay qorteen nambarka taxanaha ee lacagta si dabagalkeedu ugu fududaado. magaalada lagu arko lacagtaas waxa la garanayaa inuu Cooper joogo, qofka lagu arkana waa la qabanayaa sababtoo ah waa Cooper ama Cooper ayaa siiyey. haddaba lacagtan cid isticmaalaysa lama soo sheegin, laakiin 9 sano kadib sanadkii 1980 wiil 8 jir ah oo ku ciyaaraya webiga Louis dhinaciisa ayaa qoday meel webiga u dhow. waxa uuna ka helay 3 xidhmo oo lacag ah. nooca lacagtu waa $20, tiradeeda guudna waa 5800. inteeda badan waa lacag go'go'day oo aan shaqaynayn. baaritaan lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday in lacagtan ay qayb ka ahayd qarashkii la siiyay Cooper. meesha laga helay lacagtan waxa lagu magacaabaa Tina Bar. waa goob xoogaa ka fog halkii uu ku degay Cooper. dadka qaar ayaa aaminsan in Cooper uu lacagta meesha ku aasay, laakiin waxaa jira aragtiyo kale oo tilmaamay in lacagtan ay soo raacday biyaha webiga Louis sidaasna ay ku timaaday meeshan. haddaba sidee ayuu ku sii socday baaritaanku? ma la helay caddaymo ama raad ku saabsan Dan Cooper ama DB Cooper? maxay ahaayeen dadkii la soo xiriiray laamaha ammaanka ee sheegay inay yihiin DB Cooper ama ay wax ka og yihiin? meel ma lagu sheegay lacagtii uu dhacay afduubahani? su'aalahan iyo qaar kale oo badan waxaynu kaga jawaabi doonaa qaybta labaad ee muuqaalkan. daawasho wacan. assalaamu calaykum. waa qaybtii labaad ee sheekada Dan Cooper, ninkii afduubtay diyaaradda. waxaynu ka soo hadalnay qaabka uu diyaaradda u afduubtay iyo tilmaamihiisa. waxayna inoo marisay su'aalo ku saabsan Dan Cooper iyo in la helay caddaymo ku saabsan. sidoo kale haddii aadan daawan qaybtii hore ee sheekada waxaad ka helaysaa description-ka ama fiidiyowga hoostiisa. daawasho wacan. 1972 waa 1 sano kadib afduubka waxaa soo ifbaxay eedaysanayaal tiro beel ah kuwaas oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin faldambiyeedkii dhacay. ka sokow laamaha dowladda, warbaahinta ayaa faafisay fariimo ay ka heshay dad badan oo sheeganaya inay yihiin DB Cooper. qaar ka mida dadka ayaa tilmaamay inay garanayaan Cooper ama ay daris yihiin. halka nin uu gaarsiiyey waa walaalkay markii la gaaray 1975. dadkan tiradoodu waxa ay gaadhay 800 oo eedaysane. baaritaan iyo dabagal dheer kadib tuhunku wuxuu ku ururay 24 qof. kiiska uu galay Cooper waa afduub diyaaradeed. marka la eego sharciga Maraykanka, haddii ay 5 sano ka soo wareegto faldambiyeedka oo aan la soo qaban dambiilaha, kiisku wuu dhacayaa. taas macnaheedu waxa weeye Cooper kiiskiisa wuu dhacay oo in la maxkamadeeyo daayi lama soo xidhi karo xataa haddii uu xabsiga soo booqdo. haddaba si looga hortago arrintaas, guddi garsoorayaalaha ayaa u fadhiistay. kiiskii Cooperna waxa loo bedelay waxa loo yaqaano blackmailing oo ah in madax furasho loo qabsado dad hanti ama sir iyadoo lagu xulayo shuruudo dhaqaale ama wax kale. waa dembi aan baaba'ayn waqti kasta oo ka soo wareega. xataa 100 sano kadib haddii la qabto dambiilaha waa la xukumi karaa. Dan Cooper idima soo qaban, waxaana la oran karaa kiiskani gudaha Maraykanka waa kiiska keliya ee quseeyay afduub diyaaradeed oo aan la soo qaban dambiilihii fuliyey. sida aynu soo sheegnay, magaca uu tikidka ku qortay waa Dan Cooper, laakiin waxa uu ku caanbaxay magaca DB Cooper. inkasta oo loo badinayo in magacan qaldani uu ku faafay mid ka mid ah riboodyada dambi baadhista, haddana si saxan looma garanayo sababta loo bedelay magacii hore oo laftiisa aan la hubin inuu sax yahay. aynu u soo noqonay eedaysanayaasha ugu waaweyn ee loo maleeyay inay yihiin DB Cooper. eedaysanaha koowaad, Richard Floyd Mackey. ninkan waxa uu DB Cooper la wadaagay astaamo badan. waxaa ka mid ahaa inuu afduub diyaaradeed fuliyey 17 Abriil 1972. waa 4 bilood kadib afduubkii hore. wuxuuna doortay diyaarad uu nooceedu yahay Boeing 727. waa isla noocii afduubtay Cooper. sidoo kale markii ay diyaaraddu haadii ayuu warqad u dhiibay gabadh ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. waxa ku qornayd fariin la mid ah midii Cooper: marwa waxa aan wataa bombo. 4 dalladood ayuu dalbaday sida saaxiibkii. isla qaabkii Cooper ayuu uga booday albaabka dambe. farqiga kaliya ee u dhaxeeya labadaas kiis waa inuu fulay dalbaday,
adduun lacageed oo dhan $500,000 halka Cooper uu codsaday kaliya $200,000. haddaba Floyd khaladka uu galay ayaa ahaa inuusan lahayn taxadir iyo foojignaan la mid ah midii Cooper. runtii farihiisa ayaa laga helay meelo badan oo diyaaradda ka mid ah, xataa warqaddii uu dhiibay gabadha waxaa laga helay farihiisa, si fudud ayaana gacanta loogu soo dhigay odaygan. baaritaanka lagu soo qabtayna ma qaadan wax ka badan 2 maalmood. taxadir la'aantiisa iyo doqonnimada laga arkay ayaa laga fahmay inuu ahaa miskiin warbixinta Cooper ka aqriyay joornaalada, iskuna dayay inuu fuliyo howlgal la mid ah midii uu fuliyay Cooper, laakiinse kuma uusan guulaysan. waxaa lagu xukumay 45 sano oo xadhiga ah. dadka qaar ayaa aaminsan inuu yahay DB Cooper, laakiin xaqiiqda ayaa ah inay ku kala duwan yihiin dhowr arrimood, sida wejigiisa oo ka duwan midii Cooper. sidoo kale waxaa la caddeeyay in maalinkii afduubkii hore dhacayay in Floyd iyo qoyskiisu ay ku sugnaayeen stateka Utah. sida aynu soo sheegnay, Floyd waxaa lagu xukumay 45 sano oo xadhiga ah, laakiin ma uusan dhammaysan, sababtoo ah waxa uu isku dayay inuu xabsiga ka baxsado, wuxuuna ku dhintay rasaasta ciidanka oo ka jawaabay xabada uu ku soo riday. eedaysanaha labaad, Dwayne Weber, ninkan 24 sano kadib ayuu sheegtay inuu yahay DB Cooper. waa 1995. xaaskiisa ayaa sheegtay inta uusan dhiman inuu ku yidhi waxaan rabaa inaan kuu sheego sir aan in badan kaa qarinayay. waa aniga Dan Cooper ayuu ku yidhi. waxay soo xasuusatay arrimo badan oo caddaynaya inuu yahay DB Cooper. arrimahaas kuma aysan baraarugsanayn markii uu noolaa ee caafimaadka qabay. waxaa ka mid ahaa inuu habeenkii uu marar badan qarwi jiray ama qaylin jiray isaga oo hurda. farahayga ayay ka helayaan diyaaradda ayuu odhan jiray. sidoo kale wuxuu ka caban jiray xanuun ruugga ah oo uu sheegay inuu yahay nabar soo gaadhay xilliga uu diyaaradda ka soo booday. arrinta saddexaad ayaa ah fartiisa oo aad ugu ekayd midii Cooper. waxa kale oo ay xaaskiisu sheegtay inuu dalxiis u geeyay Tina Bar oo ah aagga laga helay lacagta 1980kii. ogow goorta uu dalxiiska u geeyay waa ka hor inta aanan la helin lacagta. intaas waxa dheer Dwayne inuu ka tirsanaa ciidanka cirka ee Maraykanka, uuna galay kiisas iyo dembiyo kala duwan markii uu ka tegay shaqada ciidanka. kiisaskaas oo sababtiisa uu xabsiga ugu qaatay muddo 6 sano ah. tan ugu dambaysa ayaa ah inuu muuqaalkiisu aad ugu ekaa DB Cooper. inkasta uu ku jiray dadkii laga shakiyay ee dabagalka lagu hayay, haddana laguma helin wax caddayn ah. aynu u gudubno eedaysanaha saddexaad, Kenneth Christensen, walaalkiis Lil Christensen. haddaba Lil 2003 ayuu daawaday muuqaal taariikhi ah oo ku saabsan DB Cooper. markii uu dhammaystay muuqaalka ayuu isu geystay xasuuso badan, wuxuuna aaminay in walaalkiis Kenneth oo xanuunka kansarka u geeriyooday sanadku markuu ahaa 1994 uu yahay DB Cooper. haddaba maxay yihiin arrimaha uu ku caddaynay in walaalkiis uu yahay DB Cooper? ugu horrayn, Kenneth waxa uu ka mid ahaa shaqaalaha Northwest Orient oo ah shirkadda lahayd diyaaraddii la afduubtay, waana arrin u sahli karta inuu helo xog badan oo ka caawin karta afduubka. qodobka labaad ayaa ah inuu jeclaa aadna u cabbi jiray nooca khamriga ee loo yaqaano bourbon, kaas oo ahaa isla noocii uu dalbaday DB Cooper. intaas waxa dheer inuu guri qaali ah gatay wax yar uun kadib markii uu dhacay afduubku. caddaynta ugu xooga badan ayaa ah in ninkan sawirkiisa la tusay mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda oo sheegtay in sawirkan uu aad ugu eeg yahay ninkii afduubka geystay ee aragtay. si la mid ah eedaysanihii hore ee Kenneth, waxa uu ka mid ahaa ciidanka Maraykanka. labadooduba waxa ay qabeen tababar ay si fudud baarashuudka uga soo goosan karaan diyaaradda oo ku duulaysa joog sare, laakiin FBI-da ayaa aaminsan in DB Cooper uusan lahayn xirfad duulimaad, sababtoo ah wuxuu doortay noocii ugu liitay marka la eego 4 baarashuud ee loo keenay. eedaysanaha afraad, Roberto Rakistow, oo ah kan ugu dambeeya aynu soo qaadan doono, waa nin yaab leh. waa nin nool ilaa maanta. waxa uu ahaa duuliye ka qayb qaatay dagaalkii Vietnam. anshax xumo iyo dhaqankiisa oo khariban ayaa sababay in laga rusqeeyo shaqada ciidanka. wax yar uun ka hor howlgalkii afduubka, wariyayaal badan oo su'aalay ma tahay DB Cooper ayuu ugu jawaabay waa laga yaabaa. mid ka mid ah waraysyadii lala yeeshay ayuu ku sheegay inuu soo afjari karo muranka ku saabsan qofka uu yahay DB Cooper. ninkan laguma hayo wax caddayn ah, sidaa darteed FBI-du waxa ay xidheen faylkiisa. sidoo kale gebi ahaan kiiskan ayaa la xiray 2016 markii laga samayn waayay wax horumar ah. muuqaalkan waxaynu ku soo qaadanay 4 ka mid ah eedaysanayaasha, laakiin sida aynu soo sheegnay tiradoodu aad ayay uga badan tahay intan. gunaanadka aragtiyaha iska hor imaanaya waxaynu ka dhigaynaa aragtida uu qabo mid ka mid ah ciidanka FBI-ga oo lagu magacaabo Larry Kerr. aragtidan wuxuu soo jeediyay sanadkii 2007, wuxuuna sheegay in DB Cooper uusan ka badbaadin boodadii diyaaradda.
markii hore waxaa loo maleynayay inuu leeyahay xirfad duulimaad, laakiin baarashuudka uu doortay oo ah noocii ugu xumaa kuwii loo keenay ayaa laga fahmay inuusan lahayn wax khibrad ah. xilli habeen ah oo ay cimiladu xun tahay ayuu diyaaradda ka booday, wuxuuna isku beegay meel kayn ah. khatartaas uma bareeri karan xataa dadka ugu khibradda badan duulimaadka ee ku nool dunida. mushkiladda ka hor imaanaysa aragtidan ayaa ah inaan la helin meydkii DB Cooper iyo xataa wax ka mida lacagtii iyo alaabtii uu watay. su'aasha taagan ayaa ah maxaa loo waayay meydkii ama lacagtii haddii uu dhintay? haddaba ma xasuustaa lacagtii laga helay jiinka webiga Louis? taageerayaasha aragtidan waxay aaminsan yihiin in Cooper uu ku dhacay webiga. dalladda iyo baarashuudka dhabarka oo lagu daray culayska maryihii uu xidhnaa ayaa suuragelin waayay inuu dabaasho, sidaas ayuuna ugu dhintay webiga. waana sababta meydkiisa looga waayay meesha uu ku degay, ayay leeyihiin taageerayaasha aragtidani. webigan waxa uu meel dhexe kaga darsamaa webiga ka weyn ee lagu magacaabo Columbia River, kaas oo biyaha ku dara badweynta Pacifiga. haddii aad xasuusato taygii uu diyaaradda kaga tegay Cooper, dib ayaa loogu sameeyey baaritaan markii ay horumartay tiknoolajiyaddu, waxaana laga helay kiimikooyin lagu isticmaalo warshadaha lagu farsameeyo diyaaradaha. si gaar ah waxa uu isticmaasha shirkadda Boeing oo ah tan farsamaysa diyaaraddii la afduubtay. sidaa darteed waxaa soo baxay tuhun ah in Cooper uu ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda. sida aynu soo sheegnay, baaritaanka kiiskan wax natiijo ah lagama gaadhin, waxaana si rasmi ah loo xidhay galka kiiskan sanadku markuu ahaa 2016. haddaba daawade, hoos nagula wadaaga aragtidaada ku aadan dhacdada. midkee ayaad u malaynaysaa inuu noqon karo Cooper eedaysanayaashii aynu ka soo warannay?